oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran barahayga xiriirka bulshada meel walba oo adduunka ka joogtaan kuna soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa 8 waxyaabood oo laga yaabo inaadan ka ogeyn ama ka garanayn weeraryahanka xulka qaranka Faransiiska iyo kooxda Real Madrid ee Karim Benzema. Waxyaabaha aan ku soo qaadi doono muuqaalkeena waxaa kamid ah inuu Benzema ku dhawaaday ku biirista kooxda Barcelona. Xidigii ay Bulgarana beddelkiisa soo qaateen inuu kamid ahaa wiilasha kubadaha soo qabta ee Paul Poise. xidigaha uu ku daydo xiriirka kala dhaxeeya fanaanada Rihanna maxay tahay bantaajada cad ee gacanta midig ugu duuban Benzema. Waxyaabaha uu jecel yahay weeraryahankan iyo arrimo kale oo ku saabsan noloshiisa gaarka ah. inta aanan gudagelin waxyaabaha uu Karim Benzema kaga tilmaaman yahay ciyaartooyda kale ha hilmaamina inaad subscribe inoo saartaan barteena YouTube-ka sidoo kalena aad furataan jaraska ama gambaleelka si ay durba degdeg idinkugu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aynu bartan soo gelino. sidoo kale waxaan codsanaynaa inaad like inoo saartaan muuqaalkan waayo taasi dhiirigelin ayay inoo tahay. mahadsanidin. Karim Benzema waxqabadkiisa Real Madrid waa mid muuqda maadaama uu kooxda Los Blancos u saftay 560 kulan una dhaliyay 280 gool halka sidoo kale uu kula guuleystay 19 koob oo ay ku jiraan 3 horyaalka La Liga Spain, 4 UEFA Champions League iyo 4 koobka kooxaha adduunka ah. Karim waa haliyay ka tirsan xidigaha galay taariikhda kooxda Real Madrid. haddaba waxaan bilaabaynaa 8 waxyaabood ee laga yaabo inaadan ka garanayn weeraryahan Karim Benzema inagoo waliba mid u dul istaagi doona. 1 Barcelona. sanadkii 2008 Karim Benzema ayaa aad uga dhex muuqday kooxda Lyon ee wadanka Faransiiska waxaana ku soo qamaamay indhayaal ka socday naadiyada waaweyn ee caalamka sida Manchester United, Real Madrid, Chelsea, AC Milan iyo FC Barcelona. xilligaas waxaa Barcelona macallin u ahaa Pep Guardiola waxaana uu liiska ku darsaday Benzema iyadoo wafdi ka socday Barcelona ay diyaarad u qaateen magaalada Lyon ee wadanka Faransiiska si ay u soo eegaan Benzema. laakiin nasiib darro wafdigii ay baarka soo dirsadeen kuma qancin qaab ciyaareedka Benzema waxaana beddelkiisa Barcelona ay soo iibsatay weeraryahanka kale ee Zlatan Ibrahimovic. 2 halkii uu Benzema ciyaaraha ka soo bilaabay iyo inuu kamid ahaa wiilasha kubadaha soo qabta ee la yiraahdo Paul Poise. Benzema waxa uu ciyaaraha soo bilaabay isagoo aad u da'yar waxaana markii uu 8 jirka ahaa uu u ciyaaray koox lagu magacaabo Bochum isagoo ciyaar ay ka hortageen Lyon dhaliyay 2 gool taasoo soo jiidatay madaxdii Lyon oo damcay inay kuliyadooda ku soo daraan wiilka da'da yar balse waxa arinta diiday kooxdii uu u ciyaarayay ee Bochum. mas'uuliyiin ka socotay Lyon ayaa waxay si toos ah u abaareen guriga Benzema waalidkiis iyagoo halka kula soo saxiixday heshiis ay kula wareegayaan wiilkooda. Benzema in badan ayuu kooxda Lyon u ahaa mid kubadaha soo ururiya ama wiilasha kubadaha soo qabtay ee la yiraahdo Paul Poise. hase yeeshee markii uu 16 jirka noqday ayaa waxa uu boos ka helay kooxda safka hore ee naadiga Lyon waxaana mar ay ciyaartooydu isbaranayeen loo dhiibay mikrofoonka si uu isugu sharaxo ciyaartooyda waaweyn ee kooxda Lyon oo ay xilligaasi ka mid ahaayeen Michael Essien, Malouda iyo sidoo kale Eric Abidal. hase yeeshee markii uu hadalka bilaabay ayaa lagu qoslay. ciyaaryahan Benzema oo aan niyad jabin ayaa ku jawaabay ha qoslinina aniga maalin baa jirtay aan ahaa wiil kubadaha soo ururiya laakiin haatan waxaan halkan u joogaa inaan booska idin kala wareego. 148 kulan ayuu u saftay 66 gool ayuu u dhaliyay 4 horyaalka Ligue A ee Faransiiska ayuuna la qaaday Benzema kooxda Lyon wuxuuna ka dhabeeyay hadalkiisii ahaa inuu halka u yimid inuu booska kala wareego xidigihii isaga ka horeeyay. 3 yuu ku dayda Karim Benzema sida ciyaartooyda kubadda cagta ciyaarta ay u leeyihiin dad ku dayda oo aad u taageersan ayaa sidaas oo kalena waxaa laacibiinta waaweyn qudhoodu jira dad ay xiiseeyaan waxaana uu Benzema sheegay inuu ku dayan jiray Ronaldinho reer Brazil ee Ronaldo Nazario oo uu xarakaadkiisa koobiyeen jiray ama soo minguurin jiray laakiin ma jiro ruux la mid ah Ronaldo el Fenomeno sida uu yiri Benzema. Benzema waxa uu weli xushmad weyn u hayaa Ronaldo reer Brazil ee Ronaldo Nazario da Lima isagoo sanadkii la soo dhaafay si toos ah Instagram-ka kula xiriiray Ronaldo
una sheegay inuu aad u jecel yahay yaraantiisiina uu telefishinka ka daawan jiray isla markaana Ronaldo uu yahay mid uu ku daysado. dadka kale ee uu ku daysado Benzema waxaa ka mid ah feeryahankii hore ee miisaanka culus ee caalamka Mike Tyson oo uu xusay in labadooduba ay xagga hoose ka soo galeen ciyaaraha ilaa xagga sarena ay ku gaareen kartidooda. 4 fanaanada Rihanna iyo xiriirka kala dhaxeeya Benzema. marka aad fanaanadan magaceeda maqasho waxaa durba maskaxdaada ku soo dhacaya heesteeda waag 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 waag, laakiin muxuu yahay xiriirka ka dhaxayn kara iyada iyo Karim Benzema? dhanka ciyaaraha marka laga yimaado waxaa Karim Benzema uu taageeraa fanaanada hip hopka Mareykanka ee Rihanna oo dhowr jeer la arkay iyagoo wada socda, xiriirkooduna uusan markii dambe miro dhal noqon. waxaana wararka qaar ay leeyihiin Karim Benzema iyo Rihanna xiriir jacayl ayaa mar ka dhaxeeyay laakiin ugu dambeyn waa uu burburay. 5 maxay tahay bantaajada cad ee gacanta midig uga duuban Benzema? sanadihii dambe waxaanu aragnaa Karim Benzema oo bantaajo cad ay kaga duuban tahay gacanta midig. maxaa jira? sidee wax u soconayaan? maxayse ka dhigan tahay arrintan? bishii Janaayo ee sanadkii 2019 waxaa dhaawac uu ka soo gaaray kulan kooxdiisa Real Madrid la dheeshay Real Betis, waxaana dhaqaatiirtu ay u sheegeen inuu ka jabay farta una baahan yahay qalliin oo 2 bilood garoomada kaga maqnaanayo. laakiin Benzema arrintaasi waa uu diiday, wuxuuna soo xirtay bantaajadaas cad ama faashadaas isagoo halkaa ka sii waday gool dhalintiisii. cajiib, haatan muddo 2 sanadood ah ayay faashadaas ama bantaajadaasi gacanta kaga duuban tahay isaga, wuxuuna weli u wataa isagoo aaminsan in faashadaasi ama bantaajadaasi cad ay baabul fartuuno u tahay ama nasiib wacan u tahay isaga. 6 dhaqaalaha Benzema. dhanka dhaqaalaha marka la eego Karim Benzema waxa uu kooxda Real Madrid kula jiraa heshiis ku eg ilaa sanadka 2022, waxaana mushahar ahaan uu isbuucii u qaataa $400,000 Mareykanka ah, lacagtaas oo dabcan uu si weyn ugu tamashlayn karo. laakiin kista uu Real Madrid ka qaato oo kaliya ma ahan ilaha dhaqaalaha ee Benzema, waxaana uu heshiisyo kale kula jiraa shirkado waaweyn oo gawaarida soo saara iyo waliba kuwa qalabka isboortiga farsameeya sida Adidas. waxaana Karim sanadkii u soo xaroota lacag dhan qiyaastii $170 milyan Mareykanka ah. 7 asal ahaan halkee ayuu ka soo jeedaa Benzema? muxuuse ku diiday inuu u ciyaaro qaranka uu asal ahaan ka soo jeedo? inkastoo Benzema uu haysto jinsiyadda Faransiiska, haddana asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa waddanka Algeria sida tababarihiisii hore ee Real Madrid ee Zinedine Zidane oo kale. waxaana sanadkii 2006 xiriirka kubadda cagta Algeria uu isku dayay inuu Benzema ku qanciyo inuu u safto xulka qaranka Algeria, hase ahaatee Karim Benzema waa uu diiday oo waxa uu go'aansaday inuu u dheelo xulka qaranka Faransiiska. Algeria waa halka ay waalidkaygu ka soo jeedaan, qalbiga ayay igaga taalaa, laakiin marka ay kubadda cagta timaado waxaan kaliya u dheelayaa xulka qaranka Faransiiska, ayuu 2006 Karim Benzema u sheegay warsidaha la yiraahdo RMC. 8 Benzema waa mid ku waalan oo aad u jecel waxyaabaha la isku udgiyo, gaar ahaan barafuunada. ciyaaryahan Karim Benzema waxa uu aad u jecel yahay barafuunada iyo uduga, waana mid uu qiray laacibka qadka dhexe ee kooxda Cadiz ee waddanka Spain Rafael Jimenez Harque oo loo garan og yahay Fali. ciyaar ay wada yeesheen Real Madrid iyo Cadiz Oktoobartii la soo dhaafay ayaa waxaa gool iyo eber lagu cabay kooxda weyn ee Real Madrid, waxaana intii kulankaasi uu socday uu ciyaaryahan Rafael Harque ag yimid Benzema, waxaana uu weydiiyey su'aal yaab lahayd oo ahayd barafuunka aad isku buufisay ii sheeg. Benzema ayaa inta sidaa u eegay laacibka ku jawaab celiyay, maxaa kaa qaldan adiga? miyaad xanuunsan tahay? ilaa iyo hadda Benzema isaga oo kaliya ayaa garanaya barafuunada uu isticmaalo. intaas ayaan ku soo koobaynaa 8 waxyaabood oo ku saabsan ciyaaryahanka haysta diinta Islaamka ee Karim Benzema oo ay dhici karto inay tahay markii kuugu horeysay ee aad maqasho. inta aan mar kale warbixin kale ku kulmi doono waa anigoo ah Harun Yusuf Qasaaro idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.